madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump oo lagu bartay inuu yahay nin maalin walba meel gala ama ku soo ataaga ama ku weerara Twitterkiisa waddanka uu doono ama madaxweynaha uu doono ama hogaamiyaha uu isagu doono kaga qora waxa uu isagu ka aaminsan yahay ayaa mar labaad dhaliil weyn u soo jeediyay waddanka Ingiriiska oo ay ayaamo hore isku khilaafeen koox cunsuriyiin oo taageeray waddanka Mareykanku madaxweynihiisu aan idhaahdee hadda waxa uu Twitterka ku soo qoray madaxweyne Donald Trump inaan hay'adda caafimaadka waddanka Ingiriiska ee loo yaqaano National Health Service oo loo soo gaabiyo NHS ay tahay hay'ad fadhiida oo jilbaha dhigatay caafimaadka waddanka Ingiriiskuna aanu ahayn mid la isku halayn karo dawladuna ay ku fashilantay buu yiri inay wax u qabato muwaadiniinteeda waxaanu sheegay in hay'adaasi ay u shaqeeyaan kumayaal shaqaale ah hase yeeshee aanay teginba goobaha shaqada oo aanay sidii loogu talagalay dadka ugu shaqeeyeen maadaama uu waddanku si fakhriyayo buu yiri oo lacag beelay Ingiriisku hay'adana aan dhaqaale fiican lagu bixinin tan ayaa ka cadhaysiisay wasiirka caafimaadka ee waddanka Ingiriiska Jeremy Hunt ninka loo yaqaano inuu madaxweynuhu Mareykanku kala garan la yahay caafimaadka waddanka Britain iyo caafimaadka Mareykanka waxaanu sheegay ku dhawaad 20 milyan oo Mareykani inaanay haysanba serviceka ugu hooseeya ee caafimaadka insurance aanay ku jirin waxa kale oo uu sheegay madaxweyne Trump inuu ku mashquulay Twitterkiisa oo aanu garanayninba shaqada uu qarankiisa u hayo iyo ta ay kala mudan yihiin wadamada dibadda ee xagga diblomaasiyadda madaxweyne Trump ayaa had iyo jeer caan ku ah inuu duqeeyo ama uu galo ama uu wuxuu doono ka sheego siyaasadda arrimaha gudaha ee waddanku isagu dhaliilo ama uu arko inaanay sax ahayn sida ay ku shaqeynaysaa isagoo aan u igman wasaaradaha dawladdiisa amaba hay'adaha u xil saaran ee waddanka Mareykanka waxaana had iyo jeer la og yahay oo la hubo ayaa inay saaxiib yihiin madaxweyne Trump iyo Twitterkiisa oo mar walba ku soo dhigo xogta uu isagu doonayo ama waddanka uu doonayo inuu dhaqaalaha ka joojiyo ama uu isagu ka dhaxarko rabitaankiisa inuu ka soo horjeedo